بسم الله الرحمن الرحيم. حبناها قراءة شعبك يا أخي كسرين مرتي شرف قيمها له برشاد قيمه ذلك الفيديو هل كان فلسا مركر وحين كل سلام يا قف كستا منصبك يا مقامك وحكم كفديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان ربا أنا اللي كجمع هالنقو كسوق يبقى بلارن وكسوق يبقى شين حفلتان ما أنت عن أقبلني ولكن دكتور محمد آل جمعالي الكوفي وأن أبوه لنا عدالة يعني أولا ربا ولا ليال إن أنا اللي كجمع هالنقو سيدا عن شرفتان وهذا كسوق يبقى شين أنت الدبدات حفلتان حفلت كان بين معه ومناسبة كوكوبا تاgeerada cadaaladda oo walaalkan helay wixii kale oo kambeeyna waxay leeyahay doontaa maalin kale iyo munaasabad kale warkaas waxaan u leeyahay waxaan arkay Umar Shido oo korankood ku celcelinay marka waxaan iiray Umar oo musharaxiin maalin kale hooyay cabsi baad yeeray waxaan rabaa walaalayaal sida aad ka warqabtaan walaalkeen ma ahan qof aan la aqoonin waa qof lagu yaqaan saaxadda dawladnimada Soomaaliya aniga waxaan isbaranay 2009kii markii uu sistamka dawladda madaxweyne Shariif uu dalka yimid asbuuc kadib maalintaas aan koofi arkayay isagoo bistoolad wata ayuu madaxweynaha u galay oo wuxuu ahaa taliyaha ilaalada gaarka ah madaxweynaha marka anigu ma garanayo aaminaadka weyn madaxweynaha dalka bistoolad oo la galay isagoo wata aniga aaminaadka weyn ma garanayo sidoo kale waxaan qoleyna hadda xasan shaqna madaxweynaha shaqada hore ma doortay inuu taliyaha ilaalada gaarka u ahaa isagana ceebo badan baa dhacay ceebaa la isku sameeyay xajiin baa la ismariyay xajiintaasna dadka walaalkeen marinayay dad cadowa iyo dad shisheeya midna ma ahayn Soomaalidu waa ka xaafade anaga reer Burceel dhaxdeena ay ahayd sideed qof oo ka shaqeynayay in walaalkeen xajiintaas iyo ceebtaas la mariyo afar ka mid ah waxay ahayd reer Burceel hadeerna aniga oo saaxiibkiisa oo aaminsan inaan matali karo oo afkiisa ku hadli karo cid xogdad iyo dagaal loo qabo fajirta wixii ugu weynaa oo saxiibka inuu waxay ahayd inuu cadaalad helo shaatigiisa inuu nadiif yahay sidii Soomaali ku taqaanay in la muujiyo wala la muujiyay wixii ugu badnaa oo intii uu waraysi bixinayay wuxuu ku celin jiray waxaan u baahanahay cadaalad in helo cadaaladina wuu helay arrintaasna ammaanteeda Ilaahay ku soo waxa iska leh hay'adaha garsoorka madaxweynaha dalka madaxweyne Xasan Maxamuud ra'iisul wasaaraha dawladda dhammaan waa ku ammaanayeen cadaalad iyo garsoor isku haleyn karo ayayna tuseen waana sababta oo la shaqeynayno intaas waxa weynisa عبد الحكيم وحوجي هداية أنا وأنا قلت ورا وجهي لابد مركا عبد الحكيم وحي قلبي وقع بحياة فورس علاي وحي بدران كان وحي بدران كان عليه كان هدايته مركا مدحونا اسمه السعودي أيام نبى صوبة حدوان وحي نيوني بسعيدة وحليها ما نيجي مسكين عليها مركا وحبيله تلفنا markii waxa ay goob wixii galmud ku saabsan waa gacmaha ay qaban karaan laakiin wixii badalada ku saabsan isku wax baahin tabaarti gaar u leeyahay madaxweyne saasaba midda kale ay qarsoonayn waa inaan goofi nafs iyo maal iyo dhiig iyo dhaqaale inta aan u horayo inuu madaxweynaha galmud noqdo enemy oo haweenka dhaqaale inta waa inuu yaqaan waa inuu cadeysto wixii uu rabo هذا القهر دور يتوصل بالحوينة هذا كان بالحوينة دور سلكية أو دور إقبالي يصير بقرة مركونا لما زدته سبحان مركلة عن الفيلم هذا خيال وكسرنا كسرنا الدشاز ولي بقى المسلا على راس غيبش
xafladda qiimeeya waxaanaysa xaruus iyo xaruusada maanta lala joogo marka professorka waa nin saaxiibada badanna faa'iidada ay leedahay halkaan bay ku caddahay in Puntland maanta fadhiyaan xagga labada wasiiraha fadhiyada xaruumaha intoo fadhiyaan koonfur galbeed sharafada diinto waa batashay aniga hadda waxaan meesha dhammaanada marixaana ku badan maxaa dhacay mar maxaa anigu saaxiib marixaan maahay